howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ADMAS ayaa wacad ku maray inay la shaqeyn doonaan ciidamada ammaanka ee dalka ee wada howlgallada nabadda lagu raadinayo inkastoo ay kordheen weeraradii Al-Shabaab ka geysanayaan gudaha dalka. ADMAS ayaa sheegtay inay ka go'an tahay inay la shaqeeyaan ciidamada Soomaaliya si looga hortago weerarada Al-Shabaab loona helo amni iyo xasilooni buuxda. sidoo kale waxa uu howlgalku tacsi u diray ehelada dadkii lagu laayay deegaanka Afriirdood ee gobolka Hiiraan kadib markii ay weerar kala kulmeen Al-Shabaab. ADMAS waxay u tacsiyeynaysaa qoysaska dadkii la dilay, weliba waxaa ka go'an inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka Soomaaliya si loo helo nabad iyo amni ka dhalata Soomaaliya, ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay howlgalka midowga Afrika ee kumeelgaarka ee ADMAS. weerarka kooxda Al-Shabaab ee ku xasuuqday dadka shacabka ah ayaa lagu dilay ugu yaraan 20 ruux, halka lagu gubay ilaa iyo 7 gaari ay la socdeen shacabkii la laayay. waxaa sidoo kale qaraxyada la beegsaday baabuur kale oo gurmad ahaan u tagay goobta si ay u soo qaadaan meydadkii dhaawacyada ka dhashay weerarkaasi. dhacdadan ayaa timid xilli gobolka Hiiraan ay ka socdaan dagaalo ka dhan ah Al-Shabaab kadib markii ay howlgallo ku qaadeen ciidamada huwanti iyo maleeshiyaadka macmuusliyada ee ka dagaalanta qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan. Ismaaciil Ibro Xasan, wararka muuqaal baahiyaha SB TV, magaalada Muqdisho.